wax soo saarka gudaha ee China boqolkiiba 8 waxa uu ka soo baxaa fikrado iyo hal-abuuro oo ka soo xaday dalalka Mareykanka iyo Yurub. Ganacsiga adduunka ka socda ma aha afkaar iyo aqoon shirkad ama dal kasta oo isku hal-abuuray. Sarreynta dhinacyada tiknoolajiyadda ee China la soo baxayna ma uu ku iman hal-abuur kaliya iyo tartan nadiif ah, balse waxa uu China ku soo saaraa dagaal iyo xeelado guuleystay oo uu surdoonkiisu hogaaminayo. waxa uu ku guuleystay inuu dhex galo shirkadaha reer galbeedka iyo inuu nuskhada ka samaysto saambaladeeda farsamo iyo siraheeda. Waxaa laga yaabaa in su'aasha aynu isweydiinayna ay tahay sidee uu China ugu guuleystay arrintaas? Jawaabtana waxaad ka helaysaa warbixintan. China waxa uu leeyahay basaasiin 10,000 gaadhaya oo u adeegsada soo xadista hal-abuurka iyo hindisayaasha tiknoolajiyadeed ee hadba dunida ku soo fool leh ama markaas curtay. waxa uu basaasaa Mareykanka iyo Yurub si uu helo hadba tiknoolajiyadda cusub ee ay curinayaan. Kadib waxa uu sameeyaa tiknoolajiyadda ay wadeen oo inta uu soo saaro uu suuqyada kula tartamo shirkadihii uu fikirka ka xaday. Marar badan ay dhacdaba inuu kaga awood bato suuqa. waxa yaab leh inay dhacday in mararka qaarkood shirkadaha waaweyn ee uu basaasay ay iyagu China u noqdaan macmiil ay ka iibsadaan qaybo ka mid ah tiknoolajiyadda uu soo saaro. China boqolkiiba 8 wax soo saarkiisa maxalliga ah waxa uu ka soo baxaa qalab tiknoolajiyadeed oo uu ka soo dhigtay farsamada iyo hal-abuurka uu ka soo xaday dawladaha kale. taariikhda casriga ah ee sirdoonka China waxa uu bilowday 20aadkii qarnigii dhawaa, waxaana aasaasay ninkii lagu magacaabi jiray Chiang Kai-shek oo ahaa hogaamiyihii ololaha midayda China, kaas oo markii ku guuleystay midaynta noqday madaxweynihii ugu horeeyay oo xilka loo dhiibay sanadkii 1928. laakiin sirtoonkii ugu horeeyay ee nidaam iyo qolfoof hay-adeed oo dhisan leh waxaa dhisay hogaamiyihii shuuciga ah ee Kang Shung oo dhisay 40aadkii qarnigii tegay. inkasta oo magaca hay-addii sirdoonka uu markaas dhisay aanu ahayn kan hadda jira, dhaqdhaqaaqyada sirdoonka Shiinuhu muddo 10 sano ah ayaa ahaayeen kuwo maxalli ah oo dalka gudihiisa ku kooban. howlgalladiisa dibadduna ma ay bilaabin ilaa la soo gaadhay bartamihii 50aadkii oo uu sameeyay hay-adda lagu magacaabo waaxda baaritaanada dhexe. mar kale ayaa uu sirdoonka Shiinaha isbedel weyn ku yimi markii uu bartamihii 70aadkii qarniga hore xukunka qabtay Deng Xiaoping, waana markii uu bilowday waqtigii uu sirdoonka China ugu wanaagsanaa abid. Deng waxa uu aasaasay wasaaradda amniga dawladda waxaanay noqotay wakaaladda sirdoonka ee ugu muhiimsan dalka China. dhammaan hay-adihii kale ee sirdoonka ee dalka ka jirayna hay-addan ayaa la hoosgeeyey. inta badan dalalka adduunku safaaradahooda ayaa ay ku dhex qariyaan saraakiishooda sirdoonka, laakiin China hab aanay dunida kala marin ayaa uu qaatay oo ah inuu basaasiintiisa iyo howlihiisa sirdoonka dhex mariyo warfidiyeenada, ardayda iyo ragga ganacsatada ah iyo xitaa shirkadaha waaweyn ee dalalka adduunka maalgashada. wasaaradda amniga qaranka oo hogaaminaysa guud ahaan hay-adaha sirdoonka China waxay howlahan basaasida u adeegsataa shaqaalaha shirkadahaas iyo dhammaan muwaadiniinteeda ku xidhan xisbiga shuuciga ah ee dalka ka arribiya. waxaanay leedahay qayb ka mas'uul ah ururinta xogaha dhammaan howlwadeenadeeda, taariikhaha qoysaskooda iyo xitaa xogaha la xidhiidha aragtiyahooda siyaasiga ah. sirdoonka China intaas kuma uu joogsan, balse waxa uu sameeyay siyaasad ah qaab dhismeedka hay-ad kasta oo ay dawladdu leedahay in lagu daro hal xafiis oo ah sirdoon. sidoo kale muwaadin kasta oo China ah shaqo kasta uu qabto waxa uu sirdoonka Shiinuhu xaq u leeyahay inuu ka dalbado inuu la shaqeeyo ama ka caawiyo hadba hawsha uu baahdo, maadaama arrintan loo aqoonsan yahay waajibaad uu qaranku ku leeyahay muwaadinka. waajibaadka muwaadinkana waxaa ka mid ah in muwaadin kasta uu sheego xogaha saaxiibkii iyo dadka ay shaqada jaalka ku yihiin, iyo sidoo kale inuu ka warramo saaxiibada iyo xubnaha qoyska haddii looga baahdo warkooda. wasaaradda amniga ee China waxay sanad kasta soo xulataa dadyo xirfado kala duwan ay u samayso oo ay dunida u waarido, iyadoo waajibaadka loo diraya ay tahay inay howlo basaasineed soo qabtaan. howlahaas oo dhan dawladda China waxay u galaysaa xaqiiqada ay ogaatay oo ah in xog la helayo muhiim u tahay horumarinta dalka ee dhinac walba ah iyo iska dhicinta cadaawaha. sidaa awgeed waajibaadka ugu weyn ee sirdoonka China waa inuu helo xogta u badan ee suurtagal ah, kadibna uu ku sameeyo lafaguriya baadhis si uu uga dhigo natiijo lagu go'aan qaato. waxaa jira wakaalad kale oo iyaduna arrimaha sirdoonka ka shaqeysa, taas oo ah wakaaladda sirdoonka militariga China. inkastoo ay wakaaladda shaqadeedu ku kooban tahay basaasida farsamooyinka casriga ah ee dalalka adduunka ku soo kordhaya si xogta la helo loogu horumariyo awoodda wax soo saarka militariga iyo sugidda ammaanka xuduudaha dalka. hay-adda sirdoonka militariga ee China waajibaadkeeda waxaa kaloo ka mid ah inay suuq u raadiso hubka iyo saanada militari ay samayso, laakiin inta badan waxa uu arrintan u adeegsadaa ganacsato iyo dilaalin aan sidan magaca dawladda China. waxa kale oo uu sirdoonka militariga ee China ka shaqeeyaa sidii uu dalka ugu heli lahaa basaasiin heerkoodu sarreeyo ama xilal muhiim ah ka haya dalalka kale. tusaalaha waxa uu ka shaqeeyaa sidii uu basaasiin uga dhigi lahaa diblomaasiyiinta shisheeyaha iyo basaasiinta u shaqeeya dalalka kale ee la qabto, kuwaasoo lagu qasbay inay sii wataan shaqadooda basaasnimo ee Shiinaha ka wataan, laakiin ay dhinaca kalena Shiinaha xogta u keenaan. sirdoonka China waxaa ka mid ah qayb loo yaqaano laanta 7 oo maamusha howlgallada sirdoon ee internetka. laantan sirdoon waxa uu shaqeeya kumanaan budhcadda internetka ah. sidoo kale waxa ay laantani leedahay unug loo yaqaano
kalluunka badda gunteeda oo shaqadooda ugu muhiimsan ay tahay inay xogta ka soo ururiyaan kombiyuutarada caalamka iyo inay la socdaan xogaha ay muwaadiniintu ku qoraan baraha xidhiirka bulshada. waxaa intaasba ka weyn in basaasiintan laga rabo in warar been abuur ah iyo xaalad abuur siyaasadeed ay ka dhex faafiyaan dalalka uu Shiinuhu loolanka kula jiro. khatarta ugu weynina waa in qofka basaaska laga dhigaa oo isku dayo inuu ka baxsado China. waayo xafiiska sagaalaad ee sirdoonka China oo qaabilsan ammaanka gudaha qadiisa ayaa ay tahay inuu ka hortag iyo dabagal ku sameeyo cid kasta oo isku dayi karta inay dowladda iyo sirdoonkeeda ka goosato. xeelada kale ee uu Shiinuhu u isticmaalo basaasiinta si aan u baxsan ayaa ah in magacyada basaasiintiisa aanu kala qarin, balse basaas kasta kuwa isku shaqada yihiin uu ku wargeliyo magaciisa iyo xogtiisa si basaasku uu uga boqo inuu goosto isagoo ka cabsi qaba in dalalka cadowga og yihiin basaasnimadiisa. sarkaal kasta oo ka tirsan sirdoonka dibadda ee China wuxuu hogaaminayaa canaasiir basaasiin ah oo dunida oo dhan ku faafsan, laguna qiyaaso boqolaal iyo kumanaan inay tiradoodu gaari karto. sida lagu ogaaday dukumeenti ay faafisay shabakadda WikiLeaks oo ay lahayd shirkadda adeegyada sirdoonka ee Stanford, basaasiinta China ku dhex beertay Mareykanka oo kaliya waxa ay tiradoodu gaaraysaa boqolaal kun sida ay ku qiyaasayso wakaaladda dambe baarista federaalka ee FBI-du. kumana koobna shakhsiyaad basaasiin ah, balse waxaa jira ilaa 3,000 oo shirkado been abuur ah oo isu ekaysiya ganacsato laakiin shaqadoodu tahay sirdoon ay u qabtaan dalkooda China. howlaha sirdoon ee uu China ka fuliyay Mareykanka gudihiisa basaasiinta soo maray waxaa ugu caansanaa Larry Wu-Tai-Shin oo ahaa muwaadin Mareykan ah oo isir ahaan ka soo jeeda China. waxa uu shaqaale ka ahaa sirdoonka Mareykanka laakiin waxa uu qarsanaa inuu ahaa basaas ka tirsan sirdoonka China kaasoo ah nooca loo yaqaano basaas laba wajiile ah. Larry muddo 30 sano ah ayaa uu qarsoodi ku shaqaynayay ilaa uu fashilmay sanadkii 1984 oo xabsiga loo taxaabay. 2 sano kadibna xabsiga ayaa uu isku dhex dilay sanadkii 1986. sirdoonku waxa uu muhiim u yahay jiritaanka dalka oo dhaqaalihiisa iyo amnigiisa ayaa ku xidhan. sidoo kale waxa uu dalku kula socdaa xaaladaha gudihiisa ka jira iyo dalalka qaar oo adeegsada caburinta iyo cagsaarista mucaaridka iyo xiisadaha gudaha ka dhaca. dalalka waaweynna waxaa muhiim ah inay wax ka ogaadaan xaaladaha hadba dalalka uu loolanku ka dhexeeyo, dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan iyo horumarka ay gaadhayaan dhinacyada hubka, ganacsiga iyo tiknoolajiyadda. dalka China markaynu gaar u eegnana waxyaabaha ugu badan ee muhiimka u ah waxaa ka mid ah helitaanka xogaha la xidhiidha farsamada casriga ah ee dhinacyada warshadaha militariga iyo rayidka labadaba. hababka uu xogtaas ku helaan waxa isugu jirtaa nidaam sirdoon iyo mid aan basaasid ahayn oo ay ka mid yihiin barnaamijyada aqoon-isweydaarsiga ah ee uu dalalka dunida la sameynayo. waxaa kaloo kaalin weyn ka qaata shirkadaha Shiinaha ee dowladdu leedahay iyo kuwa shacabka labadaba. waana hab sirdoon oo lagu magacaabi karo sirdoonka shirkadaha oo qayb ka ah nidaamka sirdoon ee dalka China. marka laga yimaado shirkadaha ay iska leedahay dowladda China oo dhaqaalaheedu xawaare aad u sarreeya ku korayo, waxaa jira shirkado shisheeye oo ay dowladdu iibsato si ay u xoojiso awoodeeda farsamada casriga ah. sida dhacdayba markii ay shirkadda Avatar Integrated System ee dalka Shiinuhu sanadkii 2018 iibsatay shirkadda samaynta kaararka xusuusta ee Mareykanka ee lagu magacaabi jiray Atoptech. sidoo kale waxaa jira maalgashiyo toos ah oo ay shirkadaha iyo dowladda China ku sameeyaan shirkadaha tiknoolajiyadda adduunka. Mareykanka oo kaliyana maalgashiga Shiinuhu waxa uu sanadkii 2015 gaarayay 9.8 bilyan oo dollar, laakiin helitaanka aqoonta tiknoolajiyadda iyo kasbashada maaliyaddu kuma filnaan karaan hamuunta uu Shiinuhu u qabo sarreynta farsamada casriga ah ee adduunka iyo inuu dunida xurmo kaga helo halku dhega ah Made in China. Shiinaha ayaa lagu sameeyey, taasoo ah halbeegiisa uu doonayo inuu gaadho sanadka 2025. si uu sirdoonka China himiladaas u gaadho, waxa kale oo howlgeliyay burcad internetka ah oo awood u leh in shirkadaha tiknoolajiyadda adduunka ay ka soo xadaan siraha farsamo iyo hal abuurka tiknoolajiyadeed ay qorshaheeda hoos u wadaan. sida lagu sheegay warbixin ay sanadkii 2018 arrintan ka samaysay hay-adda CrowdStrike ee ammaanka internetka qaabilsani. Shiinuhu waxa uu ahaa dalka ugu badan dunida ee howlgeliyay burcadda internetka, waxaana u adeegsaday inay jebiyaan kombiyuutarada ay dowladda Mareykanka ku kaydsato xogaha la xidhiidha macdanaha, dawooyinka iyo rarka. sidoo kale China waxa uu sameeyay kaarar garaadsan oo la eg xabadda bariiska ah, kuwaas oo suurtageliyay inuu basaaso shirkadda Supremeco oo ah shirkadda adduunka ugu weyn ee soo saarta motherboardka kombiyuutarada. kadibna waxa uu soo saaray motherboardo wax yar ka bedelan oo uu Shiinuhu samaystay, kuwaas oo iibsadeen shirkadaha dunida ugu waaweyn ee ay ka mid yihiin Amazon iyo Apple. Mareykanku ma aha dalka kaliya uu China la beegsado basaasidiisa, balse waxa iyaguna muhiim u ah dalalka midowga Yurub. dabayaaqadii sanadkii 2010 shirkadda Renault ee dalka Faransiiska ayaa qabatay 3 ka mid ah shaqaalaheeda oo ka howlgelayay barnaamij horumarsan oo ay ka sameynaysa baabuurta nooca korontada ku socda ah, kadib markii ay ogaatay in 3 shaqaalihii ay siraha barnaamijkan u diraan dalka China oo lacag aad u badan ka siisanaya. qorshahaas China xogta gaadhigan ku helayay ayaa waqtigaas lagu tilmaamay maalgashigii sirdoon ee lacagta ugu badan oo dowladda Shiinuhu ku bixisay tan iyo markii la howlgeliyay basaaskii Larry. sidoo kale 15% ka mid ah shirkadaha Yurub ayaa intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2017
2017 diiwaan geliyay dhacdooyin tuugo lagu sameeyay xogahooda farsamo ee qarsoodiga ahaa. khasaare aad u ballaaran ayaa soo gaadha shirkadaha uu sirdoonka China ku sameeyay xatooyada. dalalka Yurub oo kaliya waxa ay basaasida shirkadahooda ku khasaaraan $60 bilyan sanad kasta, halka dhaqaalaha Mareykankuna uu sanad kasta basaasida lagu sameeyo ku khasaaro lacag gaaraysa $320 bilyan. Koongareeska Mareykankuna waxa uu qiyaasay in howlgallada uu Shiinuhu ku xado hal abuurka iyo lahaanshiyaha xaqa curineed ee Mareykanka ay keentay in 2 bilyan oo qof ay shaqo beelaan dalka Mareykanka. dhinaca China markaynu eegnana halbeega GDP-gu 80% waxa uu ka soo baxaa been abuuridda iyo forjariyeynta howlaha hal abuurka ee dunida uu ka soo xado iyo barnaamijyada iyo farsamooyinka ku dayashada ah ee dunida kale. sirdoonka Shiinuhu meelihii ugu sarreeyay waxa uu gaaray markii uu ku guuleystay inuu shaqaaleysiiyay sarkaal hore uga tirsanaa jiray sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray Jared Tishon ayaa suurtageliyay in China uu dhex galo barnaamijka isgaarsiineed furayaal sir ah leh oo ay CIA-du leedahay, kadibna gebi ahaantiiba khalkhalgeliyay shaqadiina ka joojiyo. barnaamijkan uu China ka jabsaday CIA waxa uu fashiliyay liiska basaasiinta Mareykanka qudhiisa uu ku lahaa dalka China. basaasiintaas oo tiradooda 20 ahayd ayaa uu Shiinuhu qabqabtay dhammaantoodna dil ku fuliyay. arrintan ayaa lagu tilmaamay khasaarihii muddo 20 sano ah ugu foosha xumaa ee ku dhacay sirdoonka Mareykanka. China ma doonayo oo kaliya in dunida ganacsiga uu ku sarreeyo, balse waxa kale oo uu doonayaa in dunida uu tuso awoodda uu u leeyahay in uu reer galbeedka ka riixo gacan ku haynta dunida, waxaana ilaa hadda muuqata in jidka uu ku socdaa uu xaqiijinayo rayadiisaas. Marjan Tube.